shir ay soo qaban qaabiyeen uqaasha waxgaradka aqoon-yahanka Sulaadiinta iyo culimada diinta gobolka Togdheer ay ka soo qayb galeen maamulka heer gobol iyo heer degmo kaasi oo lagu daafuriyay qaadan ururinta wadada weyn ee isku xidha gobolka Togdheer iyo xadka Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa lagu qabtay hotel Deer ee magaalada Burco waxaana ugu horeyntiiba kulankani ka hadlay uqaal Salaadiin aqoon-yahan iyo waxgarad aad u tiro badan oo iyagu ku dheeraaday ahmiyadda iyo muhiimadda ay u leedahay wadadani bulshada reer Togdheer kuna baaqay cid kasta ay khusayso inay ka qayb qaataan hirgelinta wadadani kayigu keenay haddii ra'yi la keeno wadada waa wada dacwey taariikhdeedu waa taariikh weyn inta baabuurka way ka daaweyn marayo marka hore de baahideena waa laga soo hadlo waa baahi la og yahay intay leeg tahay qaadashadiina waa odayada hadii uu ka leeyahay fahmaya mar walba mara ee aan bixinayo hadii wadada markay u diyaar garoona maalkeeda inaan awrka u horeeyo bixiyo halay qora maanta awrka laga sheegay waa la sheegay baahida meesha taalana waa la sheegay waxaana intii kulankani socday halkaasi laga dhawaaqay guddi farsamo horeeyo guddiga qabanqaabada oo awalka ah injineer Faarax Xuseen Axmed oo injineerka ama wadi doona ama consultant ka ahaan doona ilaa ka dhigo عاقل أحمد محمود علي محمد قابيل فيصل نوح أحمد نور شري قدومية والبري عاقل باشا عبد الله محمد عثمان فارح عول قولة عول حاصل مطان halkaas waa laba iyo 10 xubnood dhinaca kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay duuqa degmada Burco Ustaad Maxamed Muraad oo isagoo halkaasi ka dhawaaqay 1 kiiloomitir ee ugu horeeya inay bixinayso dawladda hoose ee degmada Burco arkaya farxad oo aan khayrin iyo bogaadiniya oo aan u arkaya inay tahay wax aan inay nahay reer Burco iyo reer Togdheer oo wax wada qabsanayo oo dantooda midka ugu dambeyntii waa halkaasi hadallo dardaaranaya waana isugu jira ka soo jeediyay barsaabka gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiriye intii kuran balaaran oo barakaysan maalinka ka dhacay waxaan filayaa inay Burco isku raacday oo halkan hadalkii ka dhacay uu yahay inay go'aansadeen inay u tafaxaytaan wadada hawdka soo gasha dalka Burco Togdheer inay dhisaan si kastaba ha ahaatee taabagelinta wadadani ayaa ahayd mid ay ka midaysnaayeen dhammaan dadkii goobtaasi isugu yimi waa Maxamed Xuseen Ismaaciil Somsa TV Burco.